السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ومدرس سوماليلاند وإيدي سلامية meel kasta ay joogtaanba waraada waxaan arkay ninka la yiraahdo Xildhibaan Abiib oo la ciidamada bariga Soomaaliland ee beeluhu sameysteen dhaliilaya oo la reer waliba ha sameysta ciidamada bariga Soomaaliland waa ciidamada sababay maxaan ku idhaahdaa in la qabsan waayo Ceerigaabo ciidamadaasi waxay garab iyo gaashaan u yihiin ciidamada qaranka Soomaaliland markaan ma garan karo sabab ay dadka ka soo jeeda bariga galbeedka Soomaaliland ay ciidamada u dhaliilsan yihiin ee ay u leeyihiin anaguna waxaanu sameysanaynaa ciidamo horta haddii ay khatar ku jiro galbeedka Soomaaliland oo jirto cid weerar ku soo haysa xaq way u leeyihiin inay sameysataan xaq bay u leeyihiin oo difaacadaan dalka dhinaciina aad difaacadaan hase ahaatee hadday sheekadu tahay reer hebelba way samaysteen oo ana waan samaysanaya maxaanba aan u samaysan waayay macnii macno badani kuma jiro wixii waa inaad sababaysaa waa inaad sheegtaa sababta aad u doonayso ciidamada bariga Soomaaliland reer Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliland muddo kuma ah garab bay u yihiin way ka garab dagaalamayaan bariga Soomaaliland khatar buu ku sugan yahay oo maantadan aan ognahay waxa looga soo arta 10 sano iyo 4 dhinac ciidamo lixaad laba ku soo socda marka anigu waxaan aaminsanahay ciidamada madanigu inay danta ugu jirto Soomaaliland iyo difaaca Soomaaliland ciidamada madaniga waxa dhaqaalahooda iyo qalabkooda bixiyo waa beelaha Soomaaliland hadday dawladdu awood u leeday inay ciidamada la wareegto way fiicnaan lahayd hase ahaatee ma muuqato manay muujin dawladda Soomaaliland inay awood u leedahay inay ciidamo macnihii ku filan wadanka oo difaaci kara ay samaysato ama ay u joogaan si kastaba ha ahaatee markii waxyaabihii dhacay aynu ka shidaal qaadano ciidamada madaniga lagama maarmaayo marka anigu waxaan ku boorinayaa kula talinayaa dadka ciidamada mas'uulka ka ah samaystay xaqiiqadii inay xoojiyaan oo ay sii kordhiyaan mooyaane inaan maanta la oran doonin maxaan ku idhaa ciidamada hala burburiyo waxa marmarka qaar aniguba waa waad ka fikiraysaa oo dawladdu waa inay lahaato ciidan ay iyadu gacanta ku haysato ciidamada madaniga marmar waxaad oranaysaa armay haddii xaaladdu xumaato ayaguba ay maxaan ku idhaahdaa isdhibaateeyaan hase ahaatee waxaan aaminsanahay inay ku qasban yihiin beelaha bariga Soomaaliland inay ku qasban yihiin inay ciidamada weli haystaan xoojiyaan weliba waqtigan hadda lagu jiro anigu waxaan aaminsanahay inay ku qasban yihiin inay xoojiyaan oo ciidamada kordhiyaan oo qalabkooda kordhiyaan oo hawl intii ka culus galaan si ay qarankooda u difaacaan iyo dalkooda marka macnihii ciidamadaasi bariga Soomaaliland laga sameeyay ee beeluhu sameysteen ilaa iyo hadda waxa muuqata inay garab iyo gaashaan u noqdeen ciidamadii qaranka waxaanay sababtay inay kaga xoog roonaadeen cadawgii isa soo urursaday goobihii dagaalka waxaanaad ogaataa cadawgii weli wuu isa soo urursanayaa afarta koone ayuu isaga habarwacanaya dagaalku muu dhammaan maalinta aynu kala hadhe ee dagaalku dhammaada ha la yiraahdo ciidamada ama ha la qarameeyo ama si kaleba ha laga yeelay laakiin waqtigan maanta ma furna marka ninka Abiib waxaan leeyahay walaalow haddii aad leedahay galbeedku wuxuu ku jiraa wuxuu la mid yahay bariga Soomaaliland oo anana ciidamo beeleed baan u baahanay samayso ciidamadaaduna ha ahaadaan ciidamo sida kuwa bariga Soomaaliland dalka Soomaaliland difaacaya ciidamada bariga Soomaaliland waxa weeyaan waxay difaac ugu jiraan waa jiritaanka Soomaaliland waxay ku dhimanayaan oo ay u dagaalamayaan jiritaanka Soomaaliland beelaha ciidamada sameeyna way ku mahadsan waayo dhaqaalaha iyo waxa ay ku shaqeynayaan
أدي أيجا مسؤولية دي قاضي هدي أو ما أركب هدي دولة الصومال لان كبحي كرئيس برانيق وقت جاي كبحي كرتا لكن حالة دمان تموقتها لقما ما يعيد مدى مدني بريق الصومالي لا ولا لها يا قلبيتك الصومالي لو حن له صماية عيد مدني أو جاي فرنتا يهلك تقالدو كالسودان ودقالها يهوب كود يدريس كود وحودو دhan inta bixisaan oo beel ahaan u bixisaan geeya bariga Soomaaliland iyo halkii ay dhibaato ka taagan tahay. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.